طبعا sida u jeedo waxaan maraynaa qaybtii ama party 4 ayaa maraynaa ilaa iyo party 20 way gaari doontaa insha Allah ilaa iyo website-ka aan idinla dhameystiro wax kasto notification cookies email subscribe wuxuu u baahan yahay wax walbo blogger lagu nashqaday aan idinla dhameystiro kadibna insha Allah essence aan idinla dalbo intaas waa la soconayna insha Allah haddii aad rajo ka leedahay ama aad danaynaysana waad nagu xirnaan kartaa. Amazing, incredible, outstanding, amazing. Assalaamu calaykum saaxiibayaal kusoo dhawaada janaalka Somali Tutorial fadlan janaalka haddii aad ku cusub tahay subscribe inoo saar sidoo kalena muuqaalka inoo like garee haddii aad hore inoola joogteen waxaan ku leeyahay mar labaad soo dhawow maanta iyo muuqaal kale haddaba maanta muuqaalkeena waxaan ku qaadanaynaa sidee SEO setting ama website-kayga settingkiisa SEO ga aan ugu hagaajiyaa taas oo micnaheedu ay tahay sidee website-kayga Google-ka oo u rangareeya ama u cararaa waa su'aal inta badan dadka is weydiiyaan haddaba haddii aan tusaale yar aan ka siiyo ama faahfaahin yar aan ka siiyo SEO saddex ayaa loo qaybiyaa marka blogger-ka la joogo qaybta koowaad waxay tahay in website-kaaga cararo waxaa ka caawin kara inaad setting iska hagaajiso si markaas SEO content ahaan aad u hagaajiso number 2 waxay tahay in posts-ka ama artikelada aad soo gelinayso dhaxdooda aad SEO ku hagaajiso insha Allah artikelada si loo soo geliyo muuqaal ayaan ka soo sameyn doonaa laakiin sida artikelka loo sameeyo article professional ah Google AdSense oo soo aqbali karo wax copyright oo san lahayn muuqaal ayaan kaaga diyaariyay dabcan Somali Tutorial haddii aad ku xiran tahay wax badan waad ka faa'iidi doontaa insha Allah haddaba muuqaalku waa kan sida loo qoro ama sida blog post unique ah loo qoro insha Allah meelahan muuqaal korkiisa waan kuu soo saari doonaa haddaba qaybta labaadna waa sida loo qoro posts-ka dhexdiisa insha Allah idna muuqaal ayaan kaaga soo sameyn doonaa dabcan wali website-keena ma hagaagsana posts ma lahan pages ma lahan laakiin insha Allah maalin walba wax baan ku soo kordhi doonaa haddaba marka si aan SEO ga aan iskaga hagaajino waa inaan imaanaa settingka marka sida uu imaatid ugu horeen waxyaalaha aad iska hagaajinayso waxay tahay title-ka dabcan haddaad doonto magacaaga ku dhaafi kartaa haddaad doontana magaca markaas Google laga soo raadiyaa gashi kartaa Joska adaas kale anaga magaceen ayaan ku dhaafeynaa secondly waan sameynayna waxay tahay description-ka haddaba description-ka dadka inta badan way ku wareeraan description-ka waxaa horta lagaaga baahan yahay ama aan kugula talinayaa 500 oo erey meeshan lagu sii fursad at least 400 waa inaad qortaa ama 450 ama 300 inta ali ah awoodo haddana waxaan kugula sii talinayaa inaad Ingiriis akhristo inta Google AdSense oo ka soo aqbala si website-kaaga markaas professional u noqdo haddii mar Google AdSense oo ku soo aqbalo ama Soomaali ka dhigo ama luqad kale ka dhigo Joska iskale dabcan su'aashu waxay ka taagan tahay sideen u qoraa description Ingiriis ah kaasoo 400 ilaa iyo 450 in ka badan erey gaarayo inta badan qofku wuu ku wareeri karaa ama inuu ka soo fikiro contactigii wuxuu qori lahaa inuu Google Translate oo isticmaalo waxa laga yaabaa inay dhibaato ku noqoto insha Allah waxaan kugu wadaagi doonaa qaabka ugu fudud blog description aad ku qoran karto muddo sikimen ah insha Allah waxaan isticmaalaynaa website-ka caanka ee la yaqaano ama la yiraahdo ChatGPT dabcan ChatGPT adigoo Soomaali joogo waad isticmaali kartaa asi Soomaali kama shaqeeyo laakiin waxaa jiro xeelado lagu isticmaalo haddii aad doonayso ChatGPT inaad isticmaasho muuqaal professional ah qof walba uu fahmi karo ayaan kaaga diyaariyay dabcan haddii aan YouTube kan ku laabano muuqaalka sida u jeedo waa kan sidee loo sameystaa ChatGPT dabcan insha Allah inaan muuqaalkan ka boga doonto ChatGPT na aad sameysan doonto haddiiba mar aad blogger tahay ChatGPT kama maarantid insha Allah waxyaalo badan buu ka caawin doonaa haddii aan isku soo naqano haddaba waxaan rabnaa inaan description aan sameysano waayahay marka waxaan u soo naqanaynaa ChatGPT na u soo naqanaynaa meeshan dabcan waa iska refresh gareynaynaa soo marka waa refresh gareynay waxaa sameynaysaa meeshana waxaa ku qoraysaa write ama generate midda doonta ayaa isticmaali kartaa write blog description for this keyword dabcan website-keena anaga keyword ama erey ku baxaa saa u jeedo anaga address-keena waxaa waaye Somali Tutorial ma ahan kaliya title-keena iyo display name-ka waxaa ah Somali Tutorial dabcan address-ka blogger-ka aan ku leenahay waa SWedlus dabcan waxay ka dhigan tahay website-keena wuxuu ku baxaa ama uu ka hadlaa ama inta badan uu soo gudbiyaa miisaan dhimida ama waxyaalaha la isku caateeyo sidaa daraadeed waa inaan description-keena aan ka dhiganaa Wedlus website ka hadlo
haddaba intaa markaa qorto write blog description for this keyword markaa qorto laba dhibic ayaa leedahay. laba dhibic markaa leedahay space ayaa dhehaysaa, kadibna waxaa sameynaysaa weight loss ayaa gelinaysaa. weight loss waa very simple way. So marka waxaa sameynaysaa intaa markaa qorto send ayaa leedahay, kadib insha Allah isaga ku qoraayo. dabcan sida u jeedo welcome to our weight loss blog, kusoo dhawow website-keena ama bloggeena miisaan dhimida. way halkaasoo we profile aan kugu soo gudbinayno. adiga blog description dhameystiran ayuu kuu qorayaa. dabcan waxaa doonto waad ku dari kartaa, waxaa doontana waa ka dhimi kartaa. jooska adaa iskale, waa iska akhri kartaa, waa iska jeegaray kartaa. xitaa haddii aad doonayso waxaad samey kartaa all ayaa copy soo dhaxanaysaa. markaa soo dhahato kadibna waxaa leedahay copy, kadib meeshaan imaanaysaa waxaa qoranaysaa Google Translate, kadibna waa iska jeegaranaysaa. af Soomaaliana ayaa u akhrinaysaa. dabcan haddii Ingiriisku uu ku adag yahay inta waxaa saaranaysaa luqadda markaas adiga aad ku hadashid. dabcan anaga Soomaali ayaan saaranaynaa, kadibna waxaa leedahay paste. kusoo dhawow blogkeena miisaanka dhimista, halkaasoo aan ku siinayno talooyinkii ugu dambeeyay tabaha iyo macluumaadka ku saabsan sida loo gaaro yoolalkaaga dhimista miisaanka. والله runtii waa cajiib lama soo koobi karo. hadda inta inaa qorto waxay inay kugu qaadataa laga yaabaa intaas saacadood. haddaba waxaa ku qoratay sikiman. soo marka waxaan sameynaynaa copy ayaan soo dhaxanaynaa, waxaan ku soo laabanaynaa description-keena, kadibna waan ku paste garanaynaa. dabcan sida u jeedo 500 nagala rabay, 500 ka badan aan la imaanay, way noo qaadi waysaa. hadda lifestyle amaruna xataa nooma dhamaystirna, LE ayaa naga dhiman. kadib waxaan sameynaynaa inta ayaan iska qoraynaa, complete ayaan ku sameynaa dhibic ayaa leena. intaas markaad sameyso 494 hadda noo qoran. dabcan sida u jeedo waa save garaynaysaa. stepka labaad ayaa marinaa. dabcan title-kii waa Somali tutorial ayaan ku dhaafnay, sidoo kale description-kii waa hagaagsanay. tan labaad waxay tahay website-ka markaad sameyso meeshaan English waa inaad saarataa. xitaa website-kaaga hadhow haddii la soo aqbalo ka bacdi daarta Soomaali ka dhig, laakiin marka hore intaadan AdSense codsan waa inaad iska hagaajisaa, kadibna English aad saarataa. dabcan English fara badan ku jiro, English UK, English United Kingdom, adi English kligiis waa inaad doorataa. second one aad sameynaysa dan waxay tahay meeshaan favicon inaad saarato waay. haddaba marka si favicon aad u saarato waa inaad favicon aad soo sameysataa. favicon markaad soo sameysato kadib inta waa inaad soo gelisaa. dabcan favicon si loo sameysto muuqaal gaar ayaa idinkaaga soo sameyn doonaa insha Allah. tanna waa inaad iska xaqiijisaa inay kuu furan tahay Visual Search Engine inay kuu furan tahay. waa inaad iska xaqiijisaa. haddii ka xiran tahay waa inaad furataa. kan kasoo gudub waa blogger address-ka waaye, kanna waa marka dhamaynka lagu xiraa idin kasoo gudub. meeshaan maximum posts yacni hadhow marka website-kaaga qofku uu soo booqdo inta post ee la tusaayo 7. haddaad doontana inta badan waxaa ka dhigi kartaa 5 4 3 10 waxaa doonta, laakiin inta badan recommended waxaa ah asin uu kugu talagalay ama uu kuu dooqay 7 ayaan iska daynaynaa insha Allah. kanna waa inuu kuu furnaada isagana, kanna optional waa iska dayn kartaa. kuwaan isaga kuu dooqay ha taaban, faraha la gelin, sideeda ku daa. qofka comment ka bixin kara, qof walba Google isticmaalayo, marka intuu asi oo kuu dooro iska daa. haddaba marka waxa kaloo sameynayna waxay tahay meeshaan ay ku qoran tahay terms and it's very important. runtii website-kaaga ina waqtiga ka saxdo waxay ka saacideysaa dadka yacni markaasiti meesha adiga aad joogto. tusaale Soomaali waqtiga oo kale lagama helo, laakiin wadamada East Africa isku time-ka aan mid kamid ah ayaa saaranaynaa. si markaas haddaan soo dhigno qof walba Soomaali joogo iyo qof walba East Africa joogo notification-keena ama fariinteena ugu dhacdo, si markaas xayeysiinta ay noo kala gareeyaan. haddaba waxaa sameynaysaa meelahana waxaa tegaysaa GM3 ayaa meelahan ka raadinaysaa. markaa ka raadiso kadibna Addis Ababa markaa hesho directly waxaa sameynaysaa Addis Ababa ayaa dooranaysaa. dabcan inaa ujeedaa rajeyna, kadibna waxaa leedahay save. intaa markaa sameyso waxaa sameynaysaa oo kaleeto meeshaan ay ku qoran tahay meta tags waa ay furan tahay, laakiin dabcan adigu ay ka xiran tahay. waa inaad open dhahataa ama aad furtaa. dabcan marka si aad u furto meta tags haddii aad wax yar tusaale ama sharaxaad aad ka siiyo yacni qaabka ay u shaqeyso. meeshaan waxaa laga rabaa 150 word. 3 option ku furan.
optionka koowaad wuxuu yahay inaad ChatGPT aad tagto kadibna aad tiraaho meta description ii samee kabacdi aad soo qaadato inta aad la imaado. midka labaadna waxay tahay in markaas adiga Google-ka aad tagtid ama HTML tool oo kale ama website-yadan erayada lagu rank gareeyo laga soo helo ama aad soo baartid eraya markaas Google-ka laga soo raadi karo markaas loona ah competition-kooda ama search volume-koodana oo aad u sareeyo intaas oo kun bish ay soo raadiso oo English ah waa inaad soo dooqata kadibna inta aad ku soo aruursaa intaas ku furan. haddaba anaka marka intaas waqti ma gelinayno muuqaalku nagu dheeraanaya. dabcan waxaa sameynaynaa ChatGPT ayaan waxaa leenahay noo qor search description. dabcan intaan soo qaadanaynaa inta markaa soo qaadano kadibna waxaan amaanaynaa ChatGPT generate inta markaa raado. dabcan wuxuuna sii arkeena haddii wax markaas macquul gal oo na sii waayo insha Allah qaab kale u weydiin doonaa. dabcan haddaba intaan uu soo daaho way ku adag tahay marka insha Allah qaab kale u weydiinaynaa. give me meta description keywords. dabcan kii aa weli raadinayo soo amar refresh areena insha Allah si waqtiga oo san nooga dhameen si waxaan dhan u tirtirno kadibna wax cusub aan la soo galno. dabcan sida u jeedo waxaan maraynaa qaybtii ama part 4 ayaa maraynaa ilaa iyo part 20 way gaari doontaa insha Allah ilaa iyo website-ka aan idin la dhameystiro wax kasto notification cookies email subscribe wuxuu u baahan yahay wax walba blogger lagu nashqaday aan idin la dhameystiro kadibna insha Allah AdSense aan idin la dalbo intaas waa la soconayna insha Allah. haddii aad rajo ka leedahay ama aad danaynaysana waad nagu xirnaan kartaa. ugu dambeyn waxaan ku xasuusinayaa inaad channelka subscribe inoo saarto muuqaalkan inoo la gareyso. dabcan waan ku soo laabanaynaa hadda uu soo refresh gareeyay intaan ayaa baas ku leenahay kadibna search ayaa leenahay. still yara network culus dabcan meta description kiiba hadda noo sharaxa markuu noo sharaxay wuxuu noogu sameeyay search engine optimization oo loo soo gaabiyo SEO. marka wuxuuna siiyay waxyaalaha inta badan la soo raadiyo oo laga soo raadiyo sida u jeedo meeshan sida u jeedo content marketing social media business strategy branding website design e-commerce SEO BBC SEM waxyaalaha la soo raadiyo oo dhahay. anaga marka tusaale intaan qaadanaynaa inta markaa qaadano waxaa la imaanaynaa adi intaan kala saan kala waa sameyn kartaa daarto hadda doontana waxa aad markaas xorriyad u leedahay Ingiriis aad soo gashan kartaa. dabcan intaan gashanay 120 ku naqatay waan ku daanaynaa. inta markaa marayso dabcan waxa sameynaysaa haddana hoos u soo soconaysaa qaybtan iyada iska daa hadda ma ahan qaybtan marka labadan qayb imaanaysaa. labadan qayb marka imaado labadan qayb waxaa loogu talagalay ama markaas shaqadooda ay tahay marka Google Search Console lagu xirayo. insha Allah muuqaal ku xigo markaan posts qaab loo soo geliyo aad tuso waxaa ku xigi doona Google Search Console kadibna insha Allah Google Search Console marka ku xirno website-keena labadan qayb iyo Google Search Console waa isku cashir hal mar ayaan idin tusi doonaa insha Allah idan sida ugu soconaynaa. qaybtan waa monetization-ka marka AdSense oo ku soo aqbalo code ayaa la geliyaa idan insha Allah waa ku tigi doonaa. sidoo kale inta markaa sameyso intaan sideeda ku daa iyadana hoos marka soo socoto inta hadii aad doonayso profile-ka inaad wax ka bedesho waxaa leedahay user profile. dabcan user profile marka aad inta information-ka ku jiro gmail-ka ku saaran magaca display name-ka hadaad inta waa ka bedeli kartaa. dabcan logo ayaa inta soo gashan kartaa ama sawirkaaga hadhow waxay ka soo muuqanaysaa marka posts aad soo geliso postskaas geeskiisa sawirka ama marka website-ka la soo boqdo sawir geeska oo article ka dhaxaysa ka soo muuqanaysa. dabcan idina hal mar aan soo doona insha Allah marka post aad soo geliyo
sidoo kale inta waxyaala URL la gashan kartaa marka username ma gashan kartaa kulli waa nashqadaysan kartaa ugu dambeyn waxaa sameynayna kaliya meeshan not specific waxa ka dhignana mail hadii aad female tahay female ayaa dooranaysaa kuma sii dheeraanayna insha Allah kulli adaa joogs kale waxaad doonta gashan kartaa waxaad doonta iska deyn kartaa aniga intaas ay ku dhaafayna kadibna waxa leenahay save dabcan marka save dhahno sida hadda waxa ku qoratay ama aad ku hagaajisatay SEO setting kaaga oo bloggerka inta marka habeeso mid labaad laga baahan yahay waxay tahay inaad markaasi post ahaan u hagaajiso post ahaan madana marka post ahaan u sii hagaajiso ugu dambeyn qaabka ka dhimana waxay tahay inaad ku share gareyso website-yada dadka dhan ay ka qariyeen qofna ay kula wadaagin ee markaas views-ka ama traffic laga helo haddii xayeysiin ay ku furan tahay website-yadaasna aad ku share gareyso aan kula wadaagi doono laga yaabay maalinkii intaas $100 $50 $40 $20 in la eg inaad ka sameyso dabcan insha Allah SEO waan u gudbi doonaa course ayaan ka diyaariyay markuu course-ku bloggerka noo dhamaado SEO ayaan ku xiji doonaa insha Allah ilaa ay dhowr iyo 20 video muuqaalo gaarayo kaas oo ka hadlayo search engine optimization ama traffic website intaas inaan la gaari doonto ayaan rajeynaa insha Allah ugu dambeyn waxaan ku xasuusinayaa haddii aad doonayso inaad bloggerkaaga professional ka dhigto nagu soo biir oo nagu xirnaa insha Allah dabcan halka muuqaalo kala duwan ayaa ku soo gudbinaa sida u jeedo hadda bloggerka part 4 ayaa mareynaa marka haddii aad doonayso inaad wax sameysato ama markaas inaad muuqaal blogger aad soo bilowdo muuqaalka ugu horeeya part 1 ilaa iyo markaas part ugu dambeeya aad daawa kartaa haddii aad doonayso sida blog post loo qoro dabcan waa kan haddii aad doonayso sida ChatGPT loo sameeyo dabcan iyadana waa tan soo marka muuqaaladana kor ayaan ku soo saari doonaa insha Allah dhamaantood ugu dambeynna waxaan ku leeyahay sida ay nabadgelyo tan iyo muuqaalka xiga insha Allah